bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka xaqiiqsan media fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay like and shartan ha ka iloobin si wararkii ugu dambeeyey ee aynu soo gelina uu kuu soo gaaro. haddaba wararka ugu waaweyn ee maanta aan idin hayno daawadayaal waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah oo su'aalo adag ay ku weydiinayaan madaxda hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyagoona qaar ka mid ah xildhibaanadaas in ay su'aalo weydiiyeen mas'uuliyiin oo ku jiro taliye ku-xigeenka NISA Fahad Yaasiin. sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan daawadayaal warkayaga intuu socdo waxaa ka mid noqon doona dowladda Qatar oo sheegtay inay la saaxiibayso ama ay soo dhameynayso khilaafkii kala dhaxeeyay dalalka Khaliijka. wararkii ugu dambeeyay ammaanka magaalada Muqdisho oo maalmihii dambe sii xumaanayay ayaad warkayaga ku maqli doontaan. aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan su'aalo ay ku weydiinayeen ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Fahad Yaasiin ayaa ku hanjabay inuu dacwad ka gudbinayo xildhibaan su'aal kulul weydiiyey. kusimaha taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka carooday su'aal uu weydiiyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka isagoo ugu hanjabay inuu dacwad ku soo oogayo sharcigana la tiigsanayo. xildhibaan Sakariye Gaashaan ayaa fadhigii su'aalo weydiinta ee maanta ay ku sugnaayeen xubno uu ka mid yahay kusimaha agaasimaha hay'adda NISA si toos ah u weydiiyey Fahad Yaasiin arrimo ku saabsan hay'adda hoggaanka NISA xiriir la leeyahay al-shabaab iyo sababta xilka looga eriyay taliye ku-xigeenka NISA Cabdalla oo sheegay in al-shabaab ku dhex milmeen hoggaanka NISA taasoo keentay in jawaab culus uu bixiyo Fahad Yaasiin. waxa uu ka dalbaday guddoonka baarlamaanka inuu raaligelin ka bixiyo isla waqtigaasi haddii uu qaadanayo xagga qaanuuniga uu leeyahay oo ah inuu dacwad ku soo oogo. wuxuuna xildhibaanada u sheegay in sababta saxaafadda loo dalbaday in laga xiro kulanka ay ahayd in arrimahaasi oo kale aysan dhicin. waxaa ii muuqata hay-adda nabad sugidda in loo xurmadareeyey in golihii dhexdiisa su'aalo noocan la isku dhex weydiiyo. aniga shakhsiyan aanan u qalmin taas. hadalkan wuxuu gef ku yahay hay-adda nabad sugidda iyo shakhsiyan aniga waxaan codsanayaa xildhibaanka inuu cudurdaar ka bixiyo haddii kale xaqa qaanuuniga aan leeyahay ayaa qaadanaya ayuu yiri Fahad Yaasiin taliye ku-xigeenka hay-adda NISA. kusimaha agaasimaha NISA ayaa difaacay xilka eriyadii Generaal Cabdalla oo sheegay inuu bixiyey sir qaran ayna arrintaasi go'aan ka gaareen guddi anshax sidaasina xilka looga qaaday. xildhibaan Sakariye Gaashaan ayaa dhinaca kala diiday inuu raaligelin ka bixiyo su'aashii uu weydiiyey agaasimaha NISA Fahad Yaasiin wuxuuna sheegay in laga rabo inuu ka jawaabo su'aasha oo aanan ka gudbin xaqiiqda uu caddeeyo. dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar Sheekh Maxamed bin Abdiraxmaan Al Thani ayaa ku celiyey inuu wadankiisa taageersan yahay dadaalka dalka Kuwait ee ku aadan xalinta xasaradaha ka aloosan gacanka isagoo xoojiyay in dalkiisu uusan xakameyn karin dhibaatada halka markii horeba uusan isaga mas'uulka ahayn sida uu sheegay. Al Thani ayaa sidoo kale tilmaamay in dadka Sacuudiga ka imaanaya lagu soo dhaweynayo daawashada koobka adduunka oo sanada 2022 lagu qaban doono magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. wuxuuna farta ku goday in wadankiisa uusan ka hor istaagi doonin muwaadiniinta gacanka ka imaanaya booqashada Qatar isla markaana xayiraada laga qaadayo. hadalkan ayuu ka sheegay shir jiraayad oo ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa Jarmalka Heiko Maas. Al Thani waxa uu sheegay in xigmadda ay sii shaqeyn doonto si looga baxo xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan dalalka Khaliijka. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa carabka ku adkeeyey in Qatar ay markasta diyaar u tahay wada hadal aan shuruud ku xirneen isla markaana u hoggaansamayso sharciga caalamiga ah iyo ilaalinta madax bannaanida dowlad goboleed kasta iyadoo aan waxyeeleyn sharafta si kasta oo ay wax kaga tabanayso. dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay adkeynayso wada shaqeynta soona celinayso xiriirka caalamiga ah ay la lahayd dalalka Khaliijka. bishii Juun sanadkii 2017 dalalka Sacuudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jiray dowladda Qatar iyagoo ku eedeynaya Qatar inay taageerto kooxaha argagixisadaas yeeshee xukuumadda Dooxa waa ay beenisay eedeyntan. guud ahaan warkii aad kala socoteen youtube-ka xaqiiqsan media daawadayaal waa naga intaa. fadlan subscribe ha iloobin oo subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay. like iyo shartan sidoo kale ku qabo qaybta hoosena faaladaada noogu reeb. waana mahadsantihiin.